السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسلمين تميل باجوكتان وان إذي سلاميا وولالكينا مهند هبي حاشي أو جعليستو مروليبا إن إذي سوقود بيو خيرك ولا الوحا أغو فضلك بدن أغو أجرك بدن وخيرك إن أتفافس ولا وحنكا عدسان لها إن آد بيجك مهند هبي اللايك سارتو سي آد ولا سعطو موقالة فرب بدن يوتيوب كان آد سبسكرايب سارتو جزاك الله مالين مالمها كمد يروتي غاري ayaa waxaa gaarigii kaga damay meel ka fog xaafadiisii aadna ayuu uga xumaaday halka uu gaarigii kaga damay gaarigii wuu ka soo degay wuxuuna isiri fiiri gaariga waxa hayo ama waxa helay wuxuu ogaaday gaarigii inuu u baahan yahay juk ama in la riixo sidaad u taqaano markaas ayuu hareerihii eegay uu raadiyay qof la riixo marka uu waayay ayaa wuxuu isku dayay inuu kaligiisa riixo wayna u suurta gashay inuu dhaqaajiyo inkastoo ay ku adkeed inuu kaligiisa riixo ugu dambeyntii wuu dhaafi waayay halkan oo wuu daalay markaas ayuu wuxuu is yiri bal meelahan ka daydayba qofku la riixo gaarigan nasiib wanaag meeshii waxaa soo maray wiil dhalinyaro ah ilaahayna siiyey lixdiisa laxaad markaas buu ku yiri kaalay walaal ila qaba gaarigan markaas wuxuu ugu jawaabay time mahay walaal waa daansanahay aad buu uga xumaaday oo mar kale ayuu isku dayay inuu gaarigiisa riixdo waliba kaligiisa asagoo riixayo gaarigii waliba ku rafaadayo oo silcayo ayaa waxaa halkii soo maray wiil dhalinyaro ah laakiin kii hore wuu ka duwan yahay oo dhaawac ayaa lugta ka helay wiilkan laakiin sidaas ay tahay waxa uu ka damqaday yarkan kaligiisa riixaya gaarigii wuxuu jeclaystay inuu la riixo balse yarkii gaariga lahaa ayaa wuxuu ku yiri walaal waad xanuunsantahay iska daa yarkii wuxuu ku jawaabay maya walaal waa iska caadi waa inaan ku caabiyaa ilaahay kitaabkiisa quraanka wuxuu ku yiri walaalayaal wa tacaawanu cala albirri wattaqwa laakiin walaal ma wanaagsano adigoo lixdaada laxaad qabo awoodana inaad maanta qofkan caawin karto inaad wadada uga soo tagto waliba meel cidla yarkan aad u jeedaan waa yarkii xooggiisa ka baqiilay walaalkiisa xoogga u baahnaa wuxuu soo iloobay shay markuu isiri shaygii doono ayuu wuxuu arkay yarkii lugta la'aa oo caawinaya walaalkii garabka u baahnaa markaas ayuu soo xasuustay jawaabtii uu siiyay ninkii garabka u baahnaa laakiin wuu cibro qaatay oo wuxuu isiri walaalkaaga asagoo lugta laga hayo ayuu caawinayaa oo xooggiisa sadaqaysanayaa adoo ilaahay lixdii laxaad ku toosiyey maxaad u caawin la'dahay sidaasna ayuu ku caawiyay walaalkiisa walaal isku day mar waliba inaad xooggaaga baxsato oo iska ilaali inaad ka xasido ama aad ka baqiisho xooggaaga qof u baahan xoog jazaaka allah walaal aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin daawashada aad daawateen fiidiyowga walaal ha ka xasdin walaalkaaga kale inuu daawado ee gaarsii walaalaha muslimiinta meel walba joogaan si ay uga cibro qaataan fiidiyowgan barakallahu fiikum